weydiinaya waxa sidee u aragtaa madaxweynayaashan badan oo soo sharaxay oo baarlamaanka kala iibsanayo mase laga yaabaa in dagaal sokoye uu ka dhasho doorashooyinkan oo madaxweynenimo اللهم صعان aad baan ugu faraxsanahay su'aashaas waxaan anigu ugu jawaabi lahaa wixii dhacaya beritoole ilaahay baa yaqaana annagu qaalibka ma garan karno laakiin waxaan u arkaa nimanka hadda madaxweynenimada isu sharaxaya oo waliba electionkan iyo wax walba ka soo shaqeeyay isku afkartay in election sameeyaan in ay yihiin niman gudbay dagaal iyo waxa ninkii laga samata baxo oo laga badiyo waxaan u qaadanayaa inuu oran doono aniga waa laga badiyo oo wax dagaal oo san wadanka ku soo oogi doonin nimanka niman aad u sharaf badan baan u arkaa kuwii hore oo dagaalada oogi jiray marka waxaan leeyahay su'aashaadii aad weydiisay aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliyana Ilaahay meel fiican ka dhigo maxaa kale oo ku darsanaysaa waxaan ku darsanayaa waan u baahanahay Soomaaliya waana taaganahay waana aad baan u sugaynaa nimankaas inay mid ku guuleysto ilaahayna mid ku guuleysiyo mid aad u aqli badan ilaahay ku guuleysiyo inaysan kala dhicin waan ogahay niman kala dhacaysan waan u baahanahay waana sugaynaa Soomaaliya waana soo noqonaynaa walaalayaal dhinaciinaanu ka jiifnahay baarlamaanka niman raga inta iska dhigtaan hal mar wadanka lagu soo ku istaajiyo salaam